kulan cilmiyeedkan oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ahaa mid diiradda lagu saarayay kufsiga sababaha fududeeya iyo waxa xalka u noqon kara. xubnaha ka qaybgalaya kulankan ayaa waxaa ka mid ahaa culimada diinta dalka, xildhibaano ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ururada bulshada rayidka, ganacsato iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Muqdisho. xubnaha eelka u ah diinta islaamka, xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo bulshada rayidka ka qaybgalaya kulankan ayaa soo dhaweeyay iyagoo ku tilmaamay in kulankan uu waxweyn ka qaban doono dhibaatada kufsiga ee xilligan dalka ka taagan. culimada hadday dalbato inay safiiro haddii ay sax tahay safiiro dad u dhigma ama wakiilo ay dhigato meelaha muhiimka ah si ay ugu soo gudbiyaan ogoladoodan fursad u helaan. antaas baan arkahaya aafadana lana koriyo. marka aniga waxay la tahay duruufahaas iyo kuwa kale fara badan amni daraduna ay ka mid tahay ayaa waxay keenayaan in dumarkii ay dayacmeen oo waxba laga qaban meel xun oo aan munaasab ahayn inay ku nooshahay in muxuu ahaa mataqaanaa nidaam adag oo difaacana uusan jirin. marka su-aashaydii horaan ku xiraya waxa weeyaan haddii meeshii uusan nidaam dawli ah oo dadku ka baqayaan aysan jirinin dee waxa weeyaan waxaas way dhacayaan. dhacdooyinka maqlayseen dhacdooyin caadi ah maaha, dhacdooyin waxa weeye su'aalo abuuraya. caruur yar oo la kufsanayo maaragtay waxa la dilahayo, waxa la iskugu tagahayo, waxa la sawirayo, war waxaan maxay bismillaahi waxaan caadi ma ahaba. marka waxaan in baaritaan la sameeyo loo baahan yahay, baaritaan cilmiyeysan la sameeyo, in xataa psychology ahaan waxaan loo baaro. dadka la qabtay waa la dilay, war inta la dilin horta ma la wareys waxaan maxay yihiin, yaa u sheega waxaan xagee buu ka arkay, yaa ka dambeeya. xubnaha culimada ka qaybgalaya kulankan ayaa ugu dambayntii war murtiyeed ay ku cabirayeen dhibaatada kufsiga iyo waxa diinteena suuban ee islaamka ka qabto goorta ka aqriyay. waxaa xaaraan ah in lagu dhex faafiyo bulshada dhexdeeda wararka xambaarsan fawaaxishta sida ku cad suuratu nuur aayadda 19 oo waxa weeye qofku shayga faaxishadii markuu maqlo xataa waa inuu aamuso, waa inuusan baahinin. kufsigu waa faldambiyeed lagu sugo maxkamad sharci ah horteeda, yacni maaha wax la isgaargaarsiiyo la isu diray keliya la isu diray ku sugnaanaya maaha. mana bannaana in lagu baahiyo warbaahinta ama meelaha bulshadu ay ku wada xidhiidhaan sawirada qofka dhibka loo geystay ee dhibanaha. masale bannaan may ah si loo ilaaliyo macnawiyaadkiisa. macnawiyaadka waxa weeye waa dareenkiisa shakhsiyeed iyo qofka mustaqbalkiisa. shareecada islaamkuna waxay ku sugtaa falkan markhaati cad, falka kufsiga la yidhaahdo shareecadu waxay ku sugtaa markhaati cad oo loo qaateen ah oo caadil ah, oo loo qaateen ah sifaadkii markhaatigani. qabashada kulan cilmiyeedkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo tan iyo markii uu bilowday sanadkan 2019 ay falalka kufsiga noqdeen kuwa si weyn ugu soo batay qaar ka mid ah gobolada dalka. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.